wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta magaalada Xeraale ee waqooyiga gobolka Galgaduud ka daafurtay tallaalka ka hortagga caabuqa COVID-19. Tallaalkan oo maanta ay qaateen ku dhawaad 100 ruux oo isugu jira shaqaalaha caafimaadka, booliska iyo dadka da'da ah ee u nugul khatarta cudurka safmarka ay COVID-19. waxaa magaalada Xeraale ka daafuray wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Galmudug Axmed Mirac Ali Faafaale, agaasimaha guud ee wasaaradda Dr. Cabdiweli Maxamed Axmed oo ay weheliyaan wasiirro ka tirsan dowladda Galmudug iyo maamulka degmada Xeraale ee gobolka Galgaduud. gudoomiyaha degmada Xeraale ee waqooyiga gobolka Galgaduud Bashiir Daahir Yuusuf ayaa ka warbixiyay tirada tallaalka ee la soo gaarsiiyay magaalada Xeraale. maanta waa maalin magaalada Xeraale muhiim u ah. waa maalintii la daahfurayay tallaalkii COVID-19. waxaana la joogta madaxda caafimaadka iyo madax kale oo Galmudug oo badan oo wasiirro iyo xildhibaanaba leh. waxa ay noo keeneen 2200 oo qof tallaalkood. annaguna waanu ku faraxnay, waanu ku qanacsanahay. waxay kaloo noo sheegeen wixii idinka dhimanaada oo tallaal ma waayeysaana waana yiraahdeen. ayada laftigeeda wax marka caloosha lagu sii qabsado ah qaanac ah. wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud ee maamulka Galmudug Mahad Xasan Nuur iyo wasiirka beeraha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Galmudug Axmed Nuur Xaaji Cusmaan oo goobtan hadallo ka jeediyay ayaa wasaaradda caafimaadka Galmudug kaga mahad celiyay dadaalka ay ku bixisay in dhammaan deegaanada Galmudug la gaarsiiyo tallaalka ka hortagga caabuqa coronavirus kaasi oo haatan dunida walwal xoogan ku haya. waxaan celinaynaa wasaaraddu doorka ay qaadatay iyo sida ay ugu heelan tahay inay maaragtay bulshada reer Galmudug dhammaanteed u adeegto, khaasatan bulshada reer Xeraale oo runtii hadda cudurku maaragtay saameyn xoog leh ku yeeshay. walaalayaal waa mahadsantihiin safarka dheer aad u soo gasheen inaad maaragtay bulshadiina iyo dadkiina u adeegtaan. annaguna waxaan goobjoog ka nahay shaqadan quruxda badan, dowskan maaragtay bilowga ah oo fiican. kastaba maamulka Galmudug oo uu hormuud ku yahay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo madaxweyne ku-xigeenka Siciid iyo golihiisa wasiiradaba waxay diyaar u yihiin horumarinta deegaanada Galmudug, gaar ahaan degmadan arrimeeda runtii si weyn ay uga soo wada shaqeeyeen inuu tallaalkan maanta meeshan sidaan uga qabsoomo. dhammaantoodna waa u mahad celinaynaa dadaalka ay ku bixiyeen. dadka waxaan leenahay ha laga faa'iideysto cudurkan COVID-19. waad garanaysaan dowladaha naga waaweyn oo adduunka ayuu wuxuu u geystay dhibaatooyin xad dhaaf ah. marka sidaa aawadeed maanta waad garanaysaa anaga awoodeennii. wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug Axmed Mirac Ali Faafaale oo gunaanadkii goobtan ka hadlay ayaa sheegay in tallaalkan uu yahay ka hortagga caabuqa COVID-19, isagoona bulshada degmada Xeraale iyo dadka deegaanada hoostaga kula dardaarmay qaadashada tallaalkan. runtii halkan maanta waxaan u nimid degmada Xeraale in laga daahfuro tallaalkii COVID-19. tallaalkaas oo runtii muhiim u ah bulshada reer Galmudug guud ahaan. maalintii labaadna socda oo khamiistiisa official uga bilowday dhammaan degmooyinka Galmudug intooda badan. maanta halkan waxaan u nimid marka in la daahfuro oo bulshada lagu bilaabo. waan uga mahad celinaynaa gudoomiyaha degmada Xeraale inuu asagu oo noqdo qofka ugu horeeyo degmada Xeraale lagu tallaalay, bulshadana uu noqdo tusaale. waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino bulshada reer Xeraale iyo deegaanada hoos yimaada in tallaalka la qaato. nambarka la keenay oo 2200 oo qof tallaalkiisa ah, waxaan rabnaa inaan dhammaysiin maalintii 202 qof la ka rabaa inaad tallaashaan 10 bari oo tallaalku soconayo 1200 marka waxaan rabnaa inaad sida u dhaqsaa badan lagu dhammaystiro haddii la yiraahdo, iyadoo la iskaashanayo tiimamka wasaaraddu u soo qortay, tiimka wasaaraddu u soo qortay degmada inay ka shaqeeyaan iyo maamulka degmada iyo qaybaha bulshada kala duwan inaan iska kaashataan haddii la yiraahdo oo tallaalkaas sida ugu macquulsan loo socodsiiyo. Xeraale waa deegaanka kaliya ee Galmudug oo masaajidda iyo meelaha madarasooyinka ah laga fuliyo tilmaamaha caafimaadka iyo awaamirta caafimaadka laga qaato. waan ku ammaanaynaa culimada reer Xeraale iyo deegaanada hoos yimaadaba inay runtii bulshada si fiican uga wacyigeliyaan. waxaan is dhihi karaa meelaha ugu baraarugsan yahay cudurkan ayay ka mid tahay Xeraale ka mid tahay. waan ku ammaanaynaa, waxaan rabnaa in la sii joogteeyo. mudana gudoomiye culimada magaalada waxaan rabnaa COVID-ka wacyigelintiisa qayb badan ay ka qaateen, tallaalkana inay qayb badan ka qaataan haddii la yiraahdo oo dadka inay istallaalaan lagu dhiirigeliyo. tallaalku
waa ka hortag waaye marka ka hortagaas inuu bulshadana cudurka uusan ku faafin inay culamo diinku nagala qayb qaataan inay bulshada casuuntaan oo shir aad qabataan talaalkaas lagu wacyi gelinayo inay qabataan waan ka codsanaynaa haddii la yiraahdo intaas kadib waxaan rabaa fursad aan uga faa'iideysto degmada Xeraale runtii amar madaxweyne ayada wasaaradda caafimaadka galmudug ay qaadanayso oo ay fulinayso amarka madaxweynaha galmudug Axmed Qorqor waxay degmada Xeraale runtii ay u la mid tahay degmooyinka kale oo galmudug adeegyada caafimaadka ee deegaanada galmudug guud ahaan laga fuliyana si la mid ah ayaa wasaaraddu qorshaheedu ugu jirtaa in la fuliyo waxaan rabnaa inaan kugu bishaareeno wasaaradda caafimaadku inay juhdi badan gelisay gaabkii ku yimid adeegga caafimaadka ee degmada Xeraale iyo Hursho ka socday ka jiray gaabkaas oo runtii ilaa iyo 3 bil ahay in gaabkii la dhameystiray oo mashruucii asoo 3 sano la soo cusboonaysiiyay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii dhammaan bulshada deegaanada galmudug ay u qaadan lahaayeen talaalka ka hortagga caabuqa coronavirus iyadoona degmooyin iyo deegaano ka tirsan galmudug ay ka socdaan qaadashada talaalkan oo ay wajigiisa koobaad wasaaradda caafimaadka galmudug la wareegtay cabdifataax yuusuf maxamuud warbaahinta Shabeelle Dhuusamareeb